الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأحبة خطبتنا maanta waxay ku saaban tahay khatarta ay leedahay deyntu nolosha adduunka iyo aakhira labadaba maanta waxaad u jeedaa qofkii raba inuu deyn qaato ama ha ka qaato bunuugta ribowiga ah ama ha ka qaato dadka kale ee muslimiinta xitaa waxaa suuragal inuu heli karo una sahlan tahay inuu deyn qaato bangiyadu albaabada deynta way furan yihiin way fureen shuruuda way fududeeyeen qofka inuu shaqo haysto waqti dheer bay u qabteen waxa laga yaabaa in lagu yiraahdo 30 sanaad ku bixinaysa wax weyn laga goyn maayo albaabadii aad ribada iyo deynta ku galeeyahayd waa lagu sakhiray hadaa rabto inaad qof muslima wax ka qaadato iyo deyn waa laga yaabaa inay ku saalantaa wadamadan baad ku nooshahay waxa laga yaabaa dad badan oo wax haysta inay jiraan in si sahlan wax lagu deymiyo laakiin ayuha alahibba mas'ala qaadashada deynta waxa ka dambeeya deyntu khatarta ay leedahay iyo dhibaatada ay ku geysan karto rasuulku wuxuu ka hadlay sallallahu alayhi wa alihi wasallam amal la qabto waxa ugu fadli badan buu yiri jihad fi sabilillah iyo al-iiman billahi subhanahu wa ta'ala waxa istaagay saxaabi حديث إمام مسلم باسو صار من حديث أبي قتادة صحابي با استاغي وحول يا رسول الله يو بل كورن هدي أن ليودلو جدك إلهي أنو دقالميا وحي دنبياءها أن لها ورن ما ليغا دافيا هابو كويد الرسول صلى الله عليه وسلم وحي يركدبو الرسول كوريا كالي يوسو علي وحاتري محاتري وحان إريبو يري هدي أن جدك إلهي ليودلو wixii dambi aha oo dushayda aha ma laga dhaafaya wuxuu yiri haa waa laga dhaafaya hadii aad sabirto oo aad ajirna ilaahay weydiisato oo waliba adigoo sii jeedo cararaya aan lagu dilin adoo soo jeedo lagu dilo laakiin bi sharti deynta maya deynta laga dhaafin maayo wuxuu yiri rasuulku jibriil baa sida ii sheegay jibriil baa sida igu yiri deynta lama dhaafin حديث كا وحا لمد أيها الأحبة حديث كلو إمام مسلم صو صار من حديث عبد الله بن عمر بن العاص أو يسون أولي الرسول كو شيء كستوى لور ضعف قفك شهيد كا لكن دينتا مايا لور ضعف مايا واسكم معنا لبدا حديث وأخطر من ذلك وحا كسيدرا أيها الأحبة قفك دينتا الأولية إيه كل انت إيه اسكبحنين ولا قبحنين إنه سن جنة جلين المسألة خطيرة جدا إنه سن جنة جلين وحديث محمد بن عبد الله بن جحش حديث أي صار إمام أحمد النسائي حاكم شيخ الألباني حسن وكدقي وحوليه هي صحابي قاس الرسول صلى الله عليه وسلم مالين بانو فردينين مساجد كابنانكيس meesha la dhigo janaazada marka la keeno rasuulku waa indha korbu fiirinay hadana hoos buu fiiriyay dhabankiisa ayuu gacanta sida u saaray wuxuu yiri subhanallah 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 allah maxaa wax adag xalay la soo deji wuxuu yiri saxaabigii habeenkii waxba maanaan dareemin subaxii waa markuu bariyay baan ku yaa rasuulullaahi yow maxaa dhibaato oo xalay la soo dejiyay maxaa dhibaato oo la soo dejiyay wuxuu yiri waxa la soo dejiyay deynta wuxuu ku dhaartay marka rasuulku fa walladhi nafsu muhammadin biyadihi waxaan ku dhaaranayaa allah nabiyullaahi muhammad naftiisu gacantiisa ay ku jirtee haddii qof idinka mid ah ilaahay dartii uu dhinto jihad fi sabiilillah oo la soo nooleeyo oo haddana uu dhinto oo la soo nooleeyo oo haddana uu dhinto isagoo oo deyn lagu leeyahay
لا يدخل الجنة إنه سنجنة ذكرين انت سأجرها تصور شقيسته والدين لقولي إنه سنجنة ذكرين حتى يقضى عنه دينه إلى دين تلقيه أيها الأحبة جنة هدو سنجلين حقيبه قلياه نارته قلياه رسول كايري صلى الله عليه وآله وسلم حديث كسمورة من جندب وحليه صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه إمام الحاكم وصححه الشيخ الألباني مالين ما كم رسولك خطبتك وأقريه خطبة مركو أقريه أيا وحكوري هل هنا أحد من بني فلان ورهير بالوحمة كجوغا ورهير بالوحمة كجوغا ورهير بالوحمة كجوغا مركي صدحات بان يريبون أنا كجوغا وحوري محاد مركي وروها الذويدي هذه قامست وحوري رسولك صلى الله عليه وآله إن صاحبكم ورهيركين إن صاحبكم صاحبكين ninkii reerkiina ahaa ilaan yaa ka jooga buuri qoyskaas maxaa wax la isugu yahay ayuha alxib maxaa qaraabadu ay qabataa muxuu qabiilkan daba cararayno uu ku qabanayaa haddaan deynta la iska bixinayn qabiilka uu qofku ku wardiyayo xumaanta uu u gelayo qaaraanka aad ku bixinayso ummadda ilaahay dhiiggooda loogu daadin muxuu kuu qaban haddii markaad dhimato aan naar lagaa badbaadinayn bilaahi calayka qofka caqliga loo isweydiin intaasoo qoyskiina qof kuu soo istaaga haddaan la helaynin maanta markaad nooshahay waa la wada yaqaanaa hebel hebel wey nacfigaagaa la rajayn wanaag baa lagaa sugi doonaa maalin buu qofkii sida armu wax kuu qabtaa laakiin markaad dhimato qof dhabkaaga naxaya unbaa kaa naxaya wuxuu idhi saaxiibkiin waxaa xabsi uu ku yahay oo lagu xiray albaabka jannada u fiirso ninkaasi waxaa meesha ka muuqata dembi kale ma lahayn jannaduu geli lahaa laakiin albaabkii jannada lagu xabsiyey xabsi baa lagu xiray katiinad buu halkaa ku xiran yahay ee ma jiraa buuhi qof furanaya kelimada wuxuu ka cabiray furasho fafduuhu ka bixiya maa war yaa furanaya maanta qofka marka xabsiga ku jiro soo lama soo furto war yaa maanta furanaya wuxuu yidhi ma furanaysaan mise naartaad u daynaysaan idan huwa yadkhulu الnaar haddii aan laga bixin ayuha alaxiba rasuulku wuxuu weydiin jiray qofka marka la keeno salaatu اljanaa'iza hal calayhi daynu dayn ma lagu leeyahay haddii la yidhahdo waa lagu leeyahay xoola ma ka tegay looga bixiyo haddii la yidhahdo haa wuu ku tukan jiray haddii la yidhahdo maya waxaa dhacday laba jeer oo kala duwan inuu mar yidhahdo salluu calaa saaxibikum isaguna iska laabto anuu ku tukan maayo ku tukada mar kalena wuxuu yidhi yaa ka dhiibaya abi qataata yidhi yaa 2 dirham baa lagu lahaa 2 dirham waa 2 shilin waa 2 doolarood maanta macnahooda gara intay agtaada ka leeyihiin rasuulku wuu ka laabtay salaadda inuu ku tukado wuu laabtay abu qataada kacay oo yidhi yaa rasuul allah anaa bixinaya wuu soo noqday rasuulku waa ka wuxuu yidhi qofkii deynta lahaana xaqiisii wuu helay qofkii maydkuna waa beri noqday haddaan ku tukanaya waa ku tukaday sala allahu calayhi waali wasalam waa 2 doolar wey ka warrama ayuha alaxiba meeqa doolar baa dushaada ah meeqaad dayn qabtaa ma jiraa qof ka dhaaran kara maanta inuusan dayn qabin dadkaan fadhi oo dhan haddii la yidhaahdo allahu lmustacaan ayib rasuulku ilaahay buu ka magan geli jiray waa wax ilaahay laga magan galo ilaahay buu ka magan geli jiray ducooyinka aad aragteen allahuma inii acuudu bika min alhami wاlxasan wاlcajzi wاlkasal wاlbukli wاljubn wa dalaci اdayn dalacu اdayn waa hiqalu dayn ilaahayow waxaan kaa baryayaa oon ilaahu kaa magan gelayaa rabbiyow dayn inay cuslayso inay dayntu i cuslaysaan alluu kaa magan gelaya mar kale ducooyinkiisa ugu badan oo xataa fi salaa uu ku aqrin jiray waxaa ka mid ah atixiyaadka dambe markuu ku jiro allaahuma innii acuudu bika min alma'hami waalmaqram ilaahayow dembi iyo daynba waan kaa magan gelayaa qof baa ku yidhi walacalla inay caaisho ahayd maa akara maa tastaciidu yaa rasuula allaahi min almaqrab alla badanaa
inta aad ilaahay ka magan gasho daynta mar walba wuxuu ku yiri rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wasallam ninka ragga ah haduu daymoobo dadka uu sheekeeyayo ninkii daynta kula waxba u sheegaa been buuna sheegay ballanna wuu qabtaa wuuna gooyaa ballanta haye naftaada ku tadbiiq xadiiska bal adigu isku tadbiiq baraadka adigu isugu celi naftaada haye marka daynta qabto goormaad u sheegtaa dadka iimow bil hebel meelaad ka baxday maalinta lama yaqaan teleefanka qaban meys gurigaaga xitaa laga heli maayo meeqa teleefanka umada ka xiratay الله المستعان إذن أيها الأحبة المسألة رسولك الشيخ صلى الله عليه وسلم بحديث أخرجه إمام البخاري خوشو ويسهل أنت هرت دينتا ولا قاضن هدي الله بعضه حاجة ما صهوة إني جرته باهي أدق وإني قوتها رسولك يقول صلى الله عليه وسلم قفك الدين قاتا أو قاتا إسقو دون إنه بحيوه إلهي مكبحنا قفك الدين قاتا أو عن ربن إنه بحيوه ودلو الدين تاسونا كيننا الله أسخر ماي كين ماي إذن أيها الأحبة جبذا وإن أدعواتو خطورة الدين تلاذا إذن كذا يوينانت إلهي أكتيس أكولاذا كو وإن أدسك إلى لسئين الدين قاضته إلا في حاجة ماسة باهي أدق إن يكون تعلمون لبا إن الأغاتو قفك دين تقاطعي لا يدخل الجنة جنة إلهي إنه سنجلين طيب إن الأغاتو وحيابها لغا قادنا يبنوكتا مانتا الباب ذوذا إني فرين صخرين سهلين لكن وحي كوي رياني والنار يا عذاب يا حرب إلهي ويا تقال إله طيب إن هدي الدين قاضته أد نيوته أو قوان كوغادو إن الدين تابحينس أيها المصلون صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يأمر بالعدل